السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعبد الغني سعيد هيان from Badbaado Action واه يوتيوب بيج aan ugu talagalay inaan kula wadaagno bulshada reer Somaliland iyo Soomaalida iyo inta ku nool geeska Afrika fursadaha shaqo lagu soo xaysiyo dhamaanba goobaha kala duwan ee tahay social media TV-yada iyo magazines-ka sida caadada noo ahayd waxaan hore u soo gelinay fursado shaqo oo aad iyo aad u fudud maantana waxaan rajaynayaa insha Allah inaan bulshada ugu bushaareyno inaan idiin sheegno inay hay'adda Al-Huda oo ah hay'ad khayriya ay u baahan tahay 10 macallimiin oo wax ka dhigi doona KG-yada iyo primaryada hay'addaas ay gacanta ku hayso. hay'adda Al-Huda waa hay'ad khayriya oo ka shaqeysa arrimaha samafalka waxay runtii u baahan tahay inay xoojiso barnaamijyada waxbarasho ee gacanta ku hayso ee ka socda iskuulada kala duwan ee hay'adda gacanta ku hayso. hay'adda Al-Huda waxay u baahan tahay macallimiintan aan sheegi doono waxay u baahan tahay macallin ku wanaagsan oo dhigi kara gudbin kara aqoonteedina leh carabiga waxaana looga baahan yahay dugsiga loo yaqaano Abdallah Galab Primary School isla suulka laftigiisa waxaa kaloo looga baahan yahay macallin dhigi kara luqadda Ingiriisiga aqoonteedina leh waxaa kaloo ay hay'addu u baahan tahay inta muhiimka ah insha Allah ma sheego science teacher baa loo baahan yahay oo looga baahan yahay dugsiga Daarul Rahma ee Hargeysa ku yaala. waxaa kaloo hay'adda Al-Huda ay u baahan tahay female KG teacher qaybta carruurta yaryar KG-da loo yaqaano macallin gabadh ah oo gudbin kara aqoon u leh habla dhaqanka carruurta dhiganaysa KG-yada way taalibteedu waxay u baahan tahay qof mas'uuliyad dheeraad ah iyo xirfad dheeraad ah xagga dhigista ah iyo gudbinta tarbiyadda carruurta inuu ku fiicnaado qofkaasi. marka halkaas fursadaas waxay gaar u tahay haweenka gaar u tahay inay ka faa'iideystaan. dugsiga looga baahan yahay waa Al-Amir Suulka loo yaqaano. waxaa kaloo hay'addu u baahan tahay English teacher waxaa looga baahan yahay Al-Jamal School iskuulkaas asna macallin Ingiriisiga dhigi kara looga baahan yahay. macallin sugaaneed oo sugaanta iyo fanka iyo aqoon u leh gudbin kara kula tiraabi kara arrimaha sugaanta oo carruurta iyo dhalinyarta iyo ciddii meesha markaa stakeholder oo ah wax ka dhiganaysa ama fahamsiin kara wax markaa dugsiga Al-Jamal inahaas waa inay ugu muhiimsanaa oo shaqooyinka qaar baa soo noqonaya mar science teacher baa dib soo noqonaya mar Ingiriis dib soo noqonaya. fadlan shaqooyinkan waa shaqooyin aad apply gareyn karto haddaad maanta aan shaqo haynin fadlan apply garee shaqadan oo xareyso si marka ay kugu noqoto markaa fursad wanaagsan oo nolosha naftaada iyo qoyskaaga iyo ummadaba aad uga faa'iideysato waxa ugu khayr badan qofka wax bartay badan xasiiba. waxaa kaloo jirta iyaduna safety advisor shaqaha oo iyadana insha Allah xagga dibaan ka soo gelin doono oo hay'adda International NGO Safety Organization soo xaysiisay taana insha Allah iyadoo faahfaahsan baan rajaynaynaa mar labaad soo gelino. fadlan si aad shaqooyinka dambe ula socoto subscribe saar sina share garee like na sii mar walba waxaan taaganahay inaan bulshada u gudbino fursadaha si markaa qof walba aqoonteedii leh shaqadii ku habboon u helo sababkan waa apply gareeyo. qofkii u baahan in CV-ga laga caawiyo ama CV-giisuba aanu update lahayn si aan u waafajino CV ku qurux badan aqoonteediina wata waxaan ka rajaynayaa insha Allah inaad la soo xiriiri karto albaabadoodu waa ku open badanaa inta badan marka shaqo xareysanayno shaqada marka xareynayso waa inaad description-keeda iyo content waxyaabaha loo baahan yahay akhridaa waxaasi haddii markaa aanu CV-ga waafaqsanayn waxaa laga yaabaa inaad shortlist ka soo bixi weydo ama aad noqon weydo tartamihii ku habboon aad noqon weydo hadhow saan lagu qaadan waayo. badanaa waxaa dhacda Soomaalida CV qoraan ay isu gudbiyaan iyadoo aan u tixgelin hay'addan iyo hay'addan ama company wuxuu u baahan yahay iyagoon eegin
sidaas darteed waxaan ka rajaynayaa insha Allah inaydun nala soo xiriiri kartaan service aan ugu qaban karno qofkii markaa CV u baahan yahay hagaajiyo. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.